bismillaahi raxmaani raxiim habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka waxbarashada raadiyaha dalsan oo aad ka dhegaysataan habeen walba oo khamiisa jimco ay soo galayso barnaamijka waxaynu kaga hadalnaa waxbarashada guud ee dalka Soomaaliya caawana waxa aynu kaga hadli doonaa waxbarashada dalka Soomaaliya burburkii dawladii dhexe kadib barnaamijka waxa idin soo saaray anigoo aadan xasan maxamuud dhanka farsamada maxamed xuseen xusni markale habeen wanaagsan burburkii dawladii dhexe kadib waxa burburay gebi ahaan agabkii waxbarashada ee dalka uu lahay waxa magaalada ka furmay iskuulo gaar loo leeyahay sidoo kale waxa furmay dalado kuwaasi oo ahay kuwa ay maamulayeen shakhsiyaad gaar ah ma jirin manaahij ay ku mideysnaayeen manaahijta ay wax ku kala bixi jireen ayaa waxa kamid ahay manhajka Carabiga iyo manhajka Ingiriiska taasi waxa ay keentay in arday badan oo Soomaaliyeed ay wax ku bartaan luqadda Ingiriiska iyo Carabiga gebi ahaan waxa daaqada ka baxay manhajkii luqadda Soomaaliga oo ay wax ku bara jireen haddaba arinkaas ayaan waxaynu ka wareysanay barayaal sare al-ustaad Cusmaan Cabdi al-ustaad Cabdiqaadir Maxamed Cumar Cusmaan Cali Cadow ku soo dhow barnaamijka raadiyaha dalsan ee waxbarashada oo ku dhawahay aad u maasantiin martiqaadka ay fidiseen waana jeclaa inaan ka hadlo waxbarashada dalka mid hore iyo mid dambe sidoo kale Cabdiqaadir Maxamed Cumar ku soo dhow adigana barnaamijka raadiyaha dalsan oo aan uga hadli doono waxbarashada waan dhawahay wad mahadsantihiin radio dalsan iyo tabiyaha barnaamijka aad baad u mahadsantihiin sida aan laga wada ogyahay barnaamijka wuxuu ku saabsan yahay waxa lagu hadlaa aalaba waxbarashada dalka Soomaaliya heerarka ay soo kala martay iyo kala duwanaanshaheeda waxa aan rabnaa inaan uga hadalno waxbarashadii bal dugsiyada sare ee waqtigii dawladda Maxamed Siyaad Barre marka hore waxaan ku soo dhaweynayaa Cusmaan Cali Cabdi oo expert ku ah ama xilin ka ahay dawladda Maxamed Siyaad Barre ilaa haddana Soomaaliyeed wax u dhiga Cusmaan Cali Cabdi aad ku soo dhaw barnaamijka dhawahay waxbarashada dhowr heer soo martay haddaan ka hadlo heerarkii xilligii dawladda Maxamed Siyaad Barre macallimiinta iskoolaadka dhigo waxay ahaayeen macallimiin tayeysan oo la fool ah secondary marka loo macallin aan la fool ka soo bixin ma dhigi jirin dugsiyada manaahij ayaa jirtay dalka oo lahay hadda manaahij dalka ma laha dugsi sare waxaa jira manaahij oo hadda la keeno 2 sano ka hor la keenay oo dugsi dhexe iyo dugsi hoose kana waa sugeena hadda process ku jira isagana waa sugeena laakiin waxbarashada waagaas dawladda jirtay waxa lagu qaadan jiray luqadeena Soomaaliyeed macallimiinta waxay ahaayeen macallimiin tayeysan ardada waxay ahaayeen arday waxbarasho u soo jeeda ardada hadda jirta 60% arday wanaagsan waa ku jiraan laakiin intooda badan waxa waaye iskoolkaas inay tagaan bis oo waalidka u soo tagaan bis oo meelo kale aysan ka aadin moogi waxbarashada xilligii hore waxbarashada aad u fiicneed waana ka heersareysay xilliga hadda aan ku jirno aad u fiicneed haddii la eego manhajka ayaa soo hadal qaaday sida aan ognahay dawladda Maxamed Siyaad Barre waxay leedahay manhaj midaysan haatan dawladdan waxay ku guda jirtaa in ay samayso manhaj sida dawladihii hore ay lahaayeen oo kale waxaan ognahay manhajka Soomaaliya hadda ka shaqeeya inay kala duwan yihiin ardayda qaar inay Carabi wax ku bartaan sidoo kale kuwa kamid ah inay English ku bartaan kala duwanaanshaha oo manhajta iyo waqtiga ay soo bilowdeen bal warbixin naga simaan manaahijta hadda waxay bilowdeen dawladii ka horeysay oo Xasan Sheekh Maxamuud ay processkeeda bilaawatay laakiin hadda waxaa noola keenay 2 sanad ka hor noola keenay manhajka oo dugsiga dhexe iyo dugsiga hoose kan dugsiga sarena wuxuu ku jiraa hal process oo ku jira
marka balaahijta hadda ardada ka dhigtaan iskoolaadka ka dhigtaan manhajka ka hor ardada waxaa la bari jiray dalal aan dalkeena ahayn, taariikh aan taariikhdeena ahayn, waxay ku baran jireen luqado aan luqadaheena ahayn. marka hadda waxaan rajeynaynaa maamulka waxbarashada ee diyaarinaya manhajka inay soo qabtaan taariikhda iyo juqraafiga dalka Soomaaliya loona saleeyo luqadda afka Soomaaliya. sida aan ognahay ama aad ka sheekaysay ardayda waxaa tiri manhajta wax lagu bari jiray waa laba luqadood, luqadda carabiga iyo ingiriiska. haatanna waxaa loo guurayaa luqadda Soomaaliga sida ay dowladii hore Maxamed Siyaad Barre ay ahaa jirtay. gaabka ama ka imaan kara ama dhibaatada ka imaan karta arday tusaale ahaan hoose dhexe kusoo dhigtay luqadda carabiga ama ingiriis kusoo dhigtay inuu luqadda Soomaaliga usoo guuro oo luqadda Soomaaliga wax ku barto, dhibaato sidee ah ka imaan karta, maxaase ka dhalan karo? gaabis waa ka imaanaa, laakiin gaabiskaas waxay ku xirnaanaysaa labada sano hore inay gaabis ka yimaadaan possible waay, laakiin waxaan filayaa haddii 2 sano ka bacdi la gaaro in laga bixi doono oo lala qabsan doono manhajkan Soomaaliga ardada ay la qabsan doonaan. labada markii la eego manhajka luqadaha qalaad ingiriiska iyo carabiga iyo luqadda Soomaaliga markii la eego keebay ardaydu amaba ay dan ahaan u jecel yihiin markii la eego luqadda ingiriiska wax ku bartaan iyo luqadda carabiga wax ku bartaan? dadka Soomaaliyeed oo dhan waxay belief garaysiin haddii luqad ingiriisi ama luqad carabi lagu barto in waxbarashada ay tayeysan tahay. laakiin waxaan sheegayaa luqadda Soomaaliga marka lagu bartay ka tayo fiican tahay, kana waxbarashada kana fiican tahay, ardadana ay ka xiisa gelin badan tahay. markii waa luqad ay fahmayaan, macalinka ay fahmayaan. luqadda ingiriiska ardada intooda badan waa ku dhib, carabiga sidoo kale waa ku dhib. waxaa arkaysaa ardayga su-aashii la weydiiyey luqadda ingiriiska lagu weydiiyey af Soomaali ahaan uu sheegi karo laakiin luqad ahaan uusan u gudbin karin. problemkaasaa jira marka. laakiin waxaa tayo fiican marka xaqiiqda kuu sheego luqadda Soomaaliga manhajka ku baxay. manhajka aniga waxaa kusoo baray manhaj aad u tayeysan oo ahay. haddii aan kuusoo laabto Cabdiqaadir Maxamed Cumar, sida aad ogtahay ama aad ka warqabto waxaa tahay macalin muddo dheer ka dhigayay dugsiga sare, waxaadna ka mid tahay ardaydii magaalada Muqdisho wax ku bartay kasoo noqda macalimiinta. waxaan u malaynayaa inaad ka mid tahay daragii luqadda carabiga wax ku bartay. hadda waxaa la sheegaya ama ustaadku uu cadeeyey in luqadii carabiga laga guurayo ama luqadii ingiriiska laga guurayo ee la leeyahay waxaa loo guurayaa luqad Soomaaliya. maxay kula tahay bal fikirkaaga iyo waxyaalaha aad cilmiga aad u leedahay in ardaygu loo gudbiyo maanta la yiraahdo luqadda carabiga laga guuro ingiriiska Soomaaliya loo gudbiyo? bal warbixin naga sii. bismillah, ugu horeyn horta way jirtaa warbixinta in luqadda afka hooyo wax lagu barto aad ay u wacan tahay. muuqaalka hadda waxbarasho ee dalka ka jiraan waa horta muuqaal horaan burburka dowladda dhibaato ugu yimid marka la yiraahdo manhajka wax lagu baranayo. aniga hadda macallin ahaanteyda waxaan kusoo bartay carabi waaga ardayga in iga badan waxay kusoo barteen luqadda ingiliishka. waxaan xasuustaa aniga in problem aad u weyn ay u ahaan jirtay barashada shay aan afkayga hooyo igu ahaan afkayga hooyo ahayn inaan wax ku barto. runtii in labadood laga guuro waan soo dhaweynayaa, waana ku faraxsanahay in luqadda hooyo afka Soomaaliga ardayga waxa waa identity oo leeyahay marka wuxuu baranayo wuu hubaa kalsooni uu ku leeyahay. laakiin markaad luqad carabeed wax ku baranaysid, juqraafiga aad baranaysid wuxuu noqonayaa dal carabeed, shayga aad baranaysid shay dalkaaga waaqici ka ahayn waayaan. aadaan soo dhaweynaa marka in luqadda Soomaaliga wax lagu barto. maxaa caqabado ka dhalan kara maadaama ardaygii ama adigu aad sheegtay inaad luqadda carabiga wax kusoo baratay ardaygina maanta laga guuray? marka caqabadaha ka dhalan kara oo isleedahay way ka imaan karaan ardayga hal mar lagama wada guuri karo luqadda si tartiib in looga guuro. marka caqabada aad isleedahay way ka dhalan kartaa ama way ka imaan kartaa maxaa waay? caqabaduhu aad ay u fara badnaanayaan marka la rabo in shay laga guuro oo meel kale la gaaro. for example waxaa u horeeyo caqabad ka imaanayda arday ilaa adiga secondary kusoo gaaray maadada ama English wax kusoo bartay ama carabi wax kusoo bartay, markuu secondary gaarayna luqadii manhajkii loo bedelay oo Soomaali looga dhigay. maadooyinka cilmiga ayaa isaga darsamaayo ardayga kow. ilaa ardayga waxa eray bixinta anaga aad ay nagu yartaa, eray bixinta ayuu ku dhibaatoonaa. teedii kale waxay dhibaato ka imaanayda inuu la qabsado manhajka cusub la qabsigiisa isagan problem ayaa ka imaan. xitaa isaga maahan macallimiinta ayaa dhibaatada ku imaanayda. anaga barayaasha waxaan u baahanaynaa in training ama dib
noola soo dhiso oo nagula soo baro bacdayn ardaydaan u gudbino. haddii aan kusoo laabto cusmaan cali maxamed, waxaad sheegtay in manhajkii hore ee soomaaliga wax lagu bari jiray. ma jirtay waqtigii dowladdii maxamed siyaad barre manaahij kale oo ardayda wax lagu bari jiray? maya dalka oo dhan waxaa looga baran jiray manhajka af soomaaliga oo dowladda ay samaysaa looga baran jiray. kulli maadooyinka oo dhan waxaa lagu qaadan jiray soomaali, luqadda soomaaliga, xisaabta soomaaliya lagu qaadan jiray, physics soomaaliya lagu qaadan jiray, chemistryga soomaaliya lagu qaadan jiray, biologyga soomaaliya lagu qaadan jiray, except marka laga reebo luqadda alcarabiya iyo luqada tarbiyada islaamka bes. inta kale waxaa lagu qaadan jiray soomaaliya lagu qaadan jiray. ma jirin manhaj kalka ma jirin, laakiin waxaa jira barnaamijyo oo lagu barto luqadaha ingiriis carabi lagu barto ee jira dalka. maxaa faa'iidooyin oo ka dhashay in luqadda soomaaliga wax lagu barto markii aad eegto dowladdii maxamed siyaad barre? waxyaala faa'iida oo dhihi karo maanta dalka uu ka dhaxlay ma jiraan? waxaa waaye dalka min raas kamboni ilaa raas caseer waxaa laga baranaya halkaas manhajaa laga baranaya. hadda wadanka waxaa jira dalado waxbarasho oo aada usoo dadaale. dalad kastana waxay leedahay manhaj waxbarasho u gaar ay leedahay. marka waxbarashada dalka hadda aan midaysnayn, dowladda hadda waa ku dadaashay inay midayso waxbarashadii oo hadda iskoolaadka dowladda ayay la wareegtay oo dowladda hore lahayd waa la wareegtay. marka waxaan rabnaa inay la wareegto iskoolaadka kale kulli si oo loo sameeyo manhaj midaysan oo dalka cirif ilaa cirif oo dalka dhan oo ka hirgalo. haddii aan kusoo laabto cabdiqaadir maxamed cumar, sida aad sheegtay macalimiinta wax ka dhigaad ka mid tahay. waxaad tiri haddii laga wareego luqadii maanta loo wareego waxay u baahan tahay naftirkeeda process. waxaa sidoo kale macalinka uu ka dhawaajiya in lagu baran jiray luqada soomaaliga. luqada soomaaliga marka lagu baranayana dalka iyo waxyaalaha qusee lagu baran jiray. maantay si fudud inaan loogu wareegi karin waan dareemaynaa oo beri iyo beri dambe aysan naqanayn wax isla markaas laga wareegi karo. maxay tahay talada aad ka dhiiban karto aad leedahay oad ku talinayso in la sameeyo si luqadan soomaaliga wax loogu barto? ugu horeyn horta waxaan u baahannahay talo markaan yiraahno wacyigelin inaan sameyno oo wacyigelintaasi ah luqadeena hooyo inay tahay luqada ugu fiican inaan wax ku baran karno. ardayda qaar hadda tiraahdid yani soomaali wax ku barta waxay aad yani u qariibsanayaan ama la yaabayaan inay soomaali wax ku bartaan. uma maleeyaan soomaali qaar waxay kugu mamahayaan soomaali luqad cilmi maahan kugu mamahayaan. horta ugu horeyn waxaan loo baahan yahay wacyigelin aad u ballaaran in yani dad takaatira ay sameeyaan, dad aqoon-yahana ay sameeyaan, wax walibana si basic ah soomaali loogu soo dhigo. tan kale in la sameeyo yani dowriyaad ama yani wareegtooyin ama yani nadwooyin oo lagu soo bandhigo cilmiga xadka uu gaarsiisan yahay marka luqadaada hooyo lagu baranayo. wacyigelin kadib in yani ardayda kadib la tuso macalimiintoodan u horkacdo luqada soomaaliga kaliya ee wax ku sharxaan markay wax sharxayaan, markay wax qabanayaan luqada soomaaliga kaliya wax lagu qabto. priority-gan la siiyo ama mudnaantana la siiyo luqada hooyo. taabaan kula talaa al-ustaad cusmaan cali cabdi. waxaan kaloo ka codsanayaa wasaaradda waxbarashada ama dadka waxbarashada ku shaqada leh inay manhajkii dowladii hore cabdiilas ku dayi karo in lasoo celiyo. haddaan lasoo celin karana 80% lasoo celiyo. su-aasha dadka badan ee isweydiinaya ama maskaxda ka guuxaysa waxay tahay sidee lagu soo celin karaa manhajkii hore ee dowladdii maxamed siyaad barre? manhajka waa yaalaa, dalka waa yaalaa, dadka wax kusoo bartaa joogo, dadka oo jaamacadaha ugu soo baxaa joogo. manhajka waa yaalaa, macalimiintii hore aad joogta waa iyagaa lala xiriiri karaa. hadda waxaa laga helaya dalka meel kasta aniga qaar kamida waa haya manhajyadii dugsiga sare qaar kamida waa haya aniga waa la helaya waa la soo celin karaa in la tafatiro waxyaabihii khaldan laga saaro dib loo soxo la soxo kabacdi lasoo bandhigo. saas aniga ay ugu luqman. cabdiqaadir maxaa tala ah oo as leedahay ardayda soomaaliyeed maantay oo tala aad sii lahayd ama waalidiinta soomaaliya ee ardaydooda ay dhigtaan dugsiyada sare oo ama aad sii lahayd waalidiinta ama ardayda ama dowladda soomaaliya? horta waalidiinta aad bay usoo dadaaleen. marka koowaad waan u hambalyeynayaa waalid walba xaaladan adag duruufahan adag ardayda wax kusoo baray ardayga soomaaliyeed wax kusoo baray runaantii lama dhaliilsan karo. wanaagu allaa dhamayn kara, iyaga intay tabartooda way soo dadaaleen. cumuuman waxaa qof waliba kaalin ka qaatay inuu qof wax baro aan kula talin lahaa inay waxbarashada sii xoojiyaan. qolo walba dhankay ka haysana
ay ka adkaydo. hadda inagu macalimiin nahnay yani dhanka waxtabinta iyo soo jeedinta aan ka adkayno, ardayda joogitaanka iyo xuduurka iyo yani ixtiraamka macalinka ay ka adkeeyaan, wasaaraduna yani fududaydo macalinkani wax baraya ardayda iyo yani in yani garab istaagiisa ay fududaydo, dowladuna ay ka qayb qaadato. cumuuman intaa baan kula talinaya qof walba dhankii inuu darafkiisa ka adkeeyo. ustaadi maadaama aad experti aad tahay, maxaa tala ah, maxaa tusaale ah oo aad dalka iyo dadka Soomaaliyeed kula tali lahayd? aniga waxaan kula talin lahaa in manhajkii hore dalka la soo celiyo, ardayda Soomaaliyeed manhajkaas wax lagu baro, sababtoo ah manhajkaas wuxuu ka hadlayaa taariikhda dalka iyo juqraafiga dalka uu ka hadlayaa. marka ardayga Soomaaliyeed oo inta dugsi sare jooga haddii uu barto manhajka Sacuudiga ama manhajka Yemen ama manhajka Ciraaq, haddaa ka weydiiso goboladiisa dalka gobol kamida garan ma yaqaan, meeluu ku yaala ma yaqaan. marka waxaan ku talinayaa aniga in ardada loogu dhigo manhajkooda Soomaaliga, taariikhdooda iyo dalkooda iyo dhulkooda lagu baro. barnaamijka raadiyaha dalsan ayaa intaas inoogu eg. barnaamijka waxa ay nagala qayb galayay al-ustaad Cusmaan Cali Cadow iyo Cabdiqaadir Maxamed Cumar oo labadaba ah macalimiin dugsiga sare wax ka dhiga. aad u mahadsantihiin raadiyo dalsan. aad u mahadsantihiin tabiyaha barnaamijka iyo guud ahaan radio dalsan. waxaa inta inoogu ekaaday barnaamijkii waxbarashada ee aad kala socoteen raadiyaha dalsan. barnaamijka waxaa idinla socodsiinayay anigoo ah Aadan Xasan Maxamuud, dhanka farsamadana waxaa iga hagaayay Maxamed Xuseen Xusni. inta aan ku kulmi doono barnaamij midkaan lacayna, waxaan idin leenahay sidaa iyo